salaamo saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa janaalka dabagalka wararka waa 18 bisha Diseembar sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxa kamid ah shir xasaasi ah oo xalay dhaxmaray Roble shanta madaxweyne maamul goboleed Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo matalayay midowga musharaxiinta shirkaasi xasaasiga maxaa ka soo baxay maxay ahaayeen waxyaabihii la iskula soo qaaday muxuu ku soo dhamaaday warbixin ayaan ku eegi doonaa kuraasta qaar ka mid ah doorashada golaha shacabka oo maanta ka dhici lahaa Muqdishona waa la baajiyay faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya kulan dhaxmaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Turkiga ciidamo boolis ah oo xeebta liida ku qabtay doonisiday shiixnada muqaadarada iyo Maxamed bin Salmaan oo la wareegay talada Sacuudiga intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka aad ku cusubtay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka like saar share garee oo la wadaag saaxiibada aad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalkan haatan warkii oo fidsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay shir gudoomiyay kulan fogaan arag ah oo yeesheen golaha tashiga qaran kaasoo diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka dalka sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay xafiiska Roble wajiga hore ee kulanka ayaa waxa warbixin looga dhageystay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro gudoomiye Ciro ayaa dhinacyada faahfaahin ka siiyay dib u dhacyada ku yimid jadwalka doorashooyinka hufnaan la'aanta laga tirsanayo doorashada iyo wada shaqaynta ay uga baahan yihiin madaxda dowlad goboleedyada sidoo kale xubno matalayay midowga musharaxiinta ayaa ka qayb galay kulanka kuwaas oo ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame musharaxiinta ayaa madaxda golaha tashiga qaran waxay ka dalbadeen in la saxo qaladaadka ka jira habraacyada doorashooyinka iyo sida ay laga maarmaan u tahay in la dhowro hufnaanta doorashooyinka shirkan ku qabsoomay aalada Zoom-ka ayaa lagu cilaamiyay shirka dhici doona Muqdisho oo isugu imaanayaan madaxda golaha tashiga qaran si looga arinsado dhamaystirka doorashooyinka golaha midowga musharaxiinta oo horey u soo saaray qoraal ay ku cadeeyeen qaladaadka ku jira doorashada waxay dalbadeen in la hakiyo doorashada socoto balse ma jirto cid dhag jalaq u siisay dalabkaasi taasoo keentay in xalay ay si toos ah mowqifkooda ugu gudbiyaan Roble iyo madaxda maamul goboleedyada Roble ayaa hore u ballan qaaday in cabashooyinka ka yimid doorashada uu wax ka qabanayo balse ilaa hadda ma jirto hal tallaabo oo uu qaaday si wax looga bedelo hanaankan kalsoonidii musharaxiinta lumiyay oo doorashadu ku bilaabatay geesta kalena kuraasta qaar ka mid ah doorashada golaha shacabka oo maanta ka dhici lahayd Muqdisho ayaa la baajiyay warkaas iyo faahfaahinta wararkeena kale waxaa noo soo gudbinaya waryaheena waad maasantaa halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatan markaanu sii anbaqaadno qodobada warka janaalkana afayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Axmed Safiina ayaa shaaciyay in dib loo dhigay doorashada 4 kursi oo guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi uu hore u shaaciyay in maanta oo sabdiya lagu qaban doono Muqdisho afayeenka ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in axadda 19 Diseembar la qabanayo doorashada 4taasi kursi inkastoo uusan shaacin sababta ka dambeysay in dib loo dhigo doorashada guddiga maamulka doorashada xildhibaanada labada aqal ee Somaliland wuxuu ogeysiinayaa in dib u dhac ku yimid qabashada kuraasta tirsigoodu kala yahay 1 hoob 262 2 hoob 229 3 hoob 254 iyo 4 hoob 255 isla markaasna maalinta axadda oo ay taariikhdu ku beegan tahay 19 Diseembar la qaban doono kuraastaasi waxaana ku wargelinaynaa baa la yiri musharaxiinta u tartamaya kuraastaasi in 19 Diseembar ay u soo diyaar garoobaan qabashada kuraastaasi waa sida lagu yiri qoraalkaas
kuraastan ayaana waxaa hore ugu fadhiyeen xildhibaanada kale ah xildhibaanad Foosiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ku fadhisa kursiga Hoob 262, xildhibaan Cabdullaahi Cismaan Ducaale Beele wasiirka maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta oo ku fadhiya kursiga Hoob 229, xildhibaan Jaamac Maxamed Askar oo ku fadhiya kursiga Hoob 254 iyo xildhibaan Axmed Maxamuud Maxamed oo ku fadhiya kursiga Hoob 255. doorashada golaha shacabka ayaa weli sii socota iyadoo ay qaadaceen midooda musharaxiinta oo ku tilmaameen inay tahay mid ku dhisan boob, waxayna dalbadeen in la hakiyo doorashada si loo soco qaladaadka ka jira, balse ilaa iyo hadda ma jirto cid dheg jalaq u siisay. geesta kalena faahfaahin dheeraad ah waxay ka soo baxayaan kulan dhexmaray Farmaajo iyo Erdogan. madaxweynaha muddo xileedkiisu u dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Turkiga ayaa magaalada Istanbul kula kulmay dhigiisa dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. labada madaxweyne ayaana ka wada hadlay xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya. sidoo kale waxaa kulankan diiradda lagu saaray dardargelinta qorshayaashii hore ee iskaashiga dhinacyada amniga, waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha, maalgashiga iyo horumarinta iyo weliba bilaabida kuwa hor leh oo qayb ka ah qorshaha cusub ee iskaashiga dalalka Afrika iyo Turkiga. Farmaajo ayaa la wadaagay madaxweynaha Turkiga guulaha ay dowladda federaalka Soomaaliya ka gaartay xasilinta dalka, dib u dhiska hay'adaha amniga, kobcinta dhaqaalaha, hanaanka deyn cafinta, la dagaalanka argagixisada iyo horumarka kaabayaasha dhaqaalaha. waxay isla qaateen xoojinta muhiimadda ee labada dal u leedahay horumarinta iskaashigooda ku dhisan ka wada shaqeynta danaha labada qaran iyo sida ay laga maarmaan u tahay kor u qaadida xiriirka ka dhexeeya dalalka Afrika iyo Turkiga. madaxweyne Erdogan ayaana bogaadiyay guulaha la taaban karo oo ay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ku tallaabsadeen, isagoo ku dhiirigeliyay ganacsatada Soomaaliyeed in ay wax soo saarka dalkooda u suuq geeyaan dalkiisa. ugu dambeyntii madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahadceliyay Erdogan iyo shacabka Turkiga garab istaaga walaaltinimo ee u muujiyeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed, waxaana uu tilmaamay in dowladda Turkigu ay Soomaaliya u tahay saaxiib dhow oo istiraatiiji ah, iyadoona sidoo kale la filayo in maanta shir weyne u dhexeeya madaxda Afrika ka socotay iyo madaxweynaha Turkiga inuu si toos ah kaga furmo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. dhinaca kalena Cumar Cabdirashiid waxa uu ku baaqay in la saxo khilaafaadka hareeya doorashada. Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaako oo ka hadlayay xaaladda dalka gaar ahaan khilaafaadka ka taagan doorashada waxa uu soo jeediyay in xal loo helo khilaafaadkaasi. Cumar ayaa sheegay in golaha wada tashiga qaranka oo mas'uul ka ah haagista doorashooyinka dusha laga saarayo eed waliba oo ka soo laabata doorashada Soomaaliya oo waqtigeeda kadib dhacday, isla markaasna dacwooyin ay ka soo laabteen kuraasta la doortay qaarkood. Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaana dhabaha loo maro xal u helista khilaafaadka doorashooyinka ku xiray mustaqbalka dalka oo haddii si xasiloon loo galo wadanka ka dhigaysa mid nabadoon. inta aan lagu degdegin doorashooyinka waa in hoos loo eegaa shalay, maanta iyo mustaqbalka dalka. khiyaanada iyo khilaafka haddii golaha wada tashiga qaranka ku guuldareysto dhabaha lagu saxayo geedi socodka waxaa ka dhalan kara iska caabin iyo ka falcelin, ayuu yiri Cumar Cabdirashiid. doorashada golaha shacabka oo bilaabatay 1 November 2021 waxaa kaliya ilaa iyo haatan la doortay 24 xildhibaan, 2 kursina waxba kama jiraan. waxaa ka dhiga guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal. siyaasiyiinta mucaaradka, odayaasha dhaqanka, beelaha leh kuraasta xildhibaanada, musharaxiinta ku haminaysay inay ka mid noqdaan golaha shacabka baarlamaanka 11aad iyo qaar ka mid ah daneeyaasha arrimaha Soomaaliya ayaana boob ku tilmaameen sida ay u socoto doorashada. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaana ballan qaaday inuu dalka ka hirgelinayo doorasho si hufan u dhacda, waxa uuna tilmaamay in la saxayo qaladaadka ka dhashay kuraasta la doortay ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka ee ciidamada booliska Soomaaliyana xeebta liida waxa ay ku qabteen doonida shixnad muqaadarada. ciidamada booliska magaalada Muqdisho ka howlgala ayaa waxa ay xalay ku qabteen xeebta liida ee degmada Cabdicasiis doonsiday waxyaabaha muqaadaraadka. afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan ayaa sheegay in fiidnimadii xalay ee ciidanka booliska gobolka Banaadir iyo kuwa gaarka ah ay qabteen doontan oo shixnad waxyaabaha muqaadaraadka ka soo qaaday gobolada fogfog ee Ilaabo, Aale iyo Baraawe lana soo marsiiyay xeebta. doontan ayaa ciidamada booliska la wareegeen iyada iyo shixnadii ay siday, iyadoona markaasi lagu dejinayay xeebta liido meel ka mid ah waxaana la xiray dadkii la socday, iyadoona sida jawaano waaweyn oo ku jireen tubaako lagu dhex qariyay muqaadaraad kale.
si kastaba tallaabadan ayaa qayb ka ah howlgallo isdabajooga ah ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya maalmihii aanu ka soo gudubnay ee ka wadeen Muqdisho kuwaas oo lagu beegsanayay goobaha lagu kala iibsado ama lagu soo saaro waxyaabaha ammaanka dooriyo oo saameyn xoogan ku yeeshay qaar ka mid ah dhalinta magaalada Muqdisho. وهاجاجي داود يا لمي كانوا وحنو إيجينا محمد بن سلمان أيا لو ريجي تلاد الدلك السعودية كسو بلاو سو دوين تمضحد عالم كإلا قبشة شير مضحديو قبلت دحل سوجها سعودية محمد بن سلمان أيا تلاد كلو ريجي يا أبيسا وحنا نقضي بقر كعن لبقرين الدلك السعودية العربية أيضا يسوي كرديان ولا عيد لقى قبع عافمات كبقر سلمان أو كدوات سديتني الحجرة أمير محمد بن سلمان أو صدني الحجرة أيا لو ريجي تلاد madaxtooyada ayadoo boqorka aan fagaarana lagu arag muddo fog inkastoo uu amiir maxamed loo arkayay hogaamiyaha dadban ee Sacuudi Carabiya tan iyo markii uu noqday dhaxal sugaha June 2017 ayaa saameyntiisa sii kordhaysay waxaana heerkii ugu sareysay uu soo muuqday dhawaan markii uu la kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo Riyadh ay yimid sidoo kalena uu gudoomiyay shir madaxeedka golaha iskaashiga khaliijka talaadadii boqor Salmaan oo inta badan hogaamin jiray shir sanadeedkaasi ayaana la arkin markan fikrada in dhaxal sugaha uu qaabilo madaxweyne ama gudoomiyo shir madaxeed waxay dhacdaa oo kaliya marka uusan boqorka caafimaad qabin oo caana sidaasi AFP uu sheegay Yasmina oo ka tirsan macad daraaseeya arrimaha nabadda waxa hadda cusub ayaa ah in qaranka iyo waliba warbaahintuba ay aqbaleen awood isgarab socota ama xitaa kaalin muhiim ah uu yeeshay dhaxal sugaha xitaa iyadoo oo boqorkuna uu waajibaadkiisa gudanayo tan iyo markii uu dunida ka dilaacay cudurka COVID-19 boqor Salmaan ayaa deganaa magaalada cusub ee Oman oo ku teesan badda cas kulankii ugu dambeeyay ee uu hogaamiye caalami ah kula yeesho Riyadh ayaa dhacay bishii Maaj 2020 markii uu la fariistay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda UK halka safar dibadeedkiisii ugu dambeeyana uu ku tagay dalka Oman Janaayo 2020 si uu ugu soo tacsiyeeyo geeridii Suldaan Qaboos markaanu eegno arrimaha la xiriira wajiga boqortooyadana Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa isku dayay inuu isku muujiyo mid u ololeeya islaam aqoon yar socda xitaa haddii sumcadiisa ay dhaawac ka soo gaartay dilkii Jamaal Khashoggi ee ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul 2018 wuxuu haweenku u ogolaaday inay socon karaan ayagoo aysan wehelin muxramkooda ayna wadi karaan baabuurta wuxuuna sidoo kale ogolaaday in shineemooyin laga furo dalkaasi iyo arrimo kale oo horey aan loo ogeyn dhaxal sugaha ayaa Sacuudi Carabiya u furay dalxiisayaasha iyo maalgashiyaasha dibadeed si uu u kala duwo ilaha dhaqaale ee dalkaasi oo hadda intiisa badan ku tirsan dhoofinta shidaalka waxa uu xitaa si ka badan aabihiisa ugu muuqday inuu u furfuran yahay xiriirka Israa'iil isagoo ogolaaday in diyaaradaheeda ganacsi ay dul maraan hawada Sacuudiga mas'uuliyiinta Sacuudiga ma aysan sheegin sababta boqor Salmaan uusan u imaanin kulankii madaxeedkii khaliijka ee talaadada gaar ahaan maadaama uu horaantii toddobaadkan telefishinka ka jeediyay khudbad uu kaga hadlayay miisaaniyadda dalka si kastaba la taliyaha dowladda Sacuudiga Ali Shihabi waxa uu sheegay in boqorka uu wanaagsan yahay balse uu taxadarayay oo kaliya ila wareedyo lagu kalsoon yahay waxa ay xaqiijiyeen in boqorka uu caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay oo jimicsi sameeyo maalin kasta balse waa 86 jir aan jecleen inuu xirto afdabool wuxuuna dabeecad u leeyahay inuu dadka gacan qaado oo uu salaamo sidaasi daraadeed waxaa la qaatay taxadar dheeri ah oo dadweynaha looga fogeynayo ayuu Shahabi ku yiri qoraal uu soo dhigay Twitterkiisa koor kulan madaxeedka golaha iskaashiga khaliijka Maxamed bin Salmaan waxa uu safar ku soo maray gobolka isagoo oo la soo kulmay madaxda dalalka ku jira golaha go'aan kasta oo hadda ka dhacaya xarunta boqortooyada waxa loo marayaa xafiiska dhaxal sugaha waxa sidaasi AFP u sheegay diblomaasiga galbeed oo codsaday inaan la magacaabin boqorka hadda iyo wixii ka dambeeya ma muuqdo Maxamed bin Salmaan wixii hadda ka dambeeya sugi maayo in uu boqor noqdo waa boqorka ku sugan madaxtooyada marinka Maxamed bin Salmaan u marayo carshiga boqortooyada muddo waa uu cadaa ayadoo aysan muuqan wax caqabad ah kadib markii uu mid u siibay kuwii la xifaaltamayay
ma jiro il mucaarad ah oo ka dhex muuqata gudaha iyo banaanka boqortooyada. waxaa sidaas yiri Xuseen Ibish oo ah qabiir bariga dhexe oo fadhigiisu yahay Washington. Maxamed bin Salman dhab ahaantii hadda sidii hore waa ka muuqdaa kana awood badan yahay ayuu ku yiri warkiisa. guud ahaan daawadayaal wanaagayinta warkii waad kala socoteen janalka dabagalka wararka. fadlan hadaan ugu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saara janalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24 saacan halkan ku baayino aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalka share gareeya laagtiin waa inoo muhiim daawadayaal wana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dabagalka wararka.